waatay laakiin hadda waxaan rabaa inaan idin gudbiyo dhankaas iyo Nairobi oo ay ka dhaceen rabshado iyo mudaharaadyo waxaana noo soo diyaariyay warbixintan Cabdiqafaar Axmed Shire oo jooga magaalada Nairobi ahna agaasimaha bartamaha ee dhankaas qaaradda Afrika ayaa ku geeriyooday tiro kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray mudaharaad faraha la isla tagay oo ka dhacay banaanka masaajidka Jamia Mosque ee bartamaha magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. Doorashada ayaa waxay timid markii booliska dalka Kenya ay xabado la dhaceen dad careysan oo muslimiin ay markaana dalbanayeen in la sii daayo wadaad ku xiran dalka Kenya oo asalkiisu ka soo jeeda dalka Jamaica ee ku yaala qaaradda Amerikada Koonfureed. ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay mudaharaadkani halka tiro kalena ay ku dhaawacantay kadib markii la toogtay. hase ahaatee xaqiiqdii ma sheegi karno cidda toogatay dadkani ayuu yidhi sababtoo ah qaar ka mid dadka mudaharaadayaasha ayaa hubaysnaa sidaasi waxaa yidhi mid ka mid a saraakiisha ammaanka ee dalka Kenya markii laga tago eedeyntan booliska dalka Kenya ay u jeedinayaan dadkii mudaharaadaya ay ku tilmaameen in qaar ka mid a dadkaasi ay hubaysnaayeen ayaa indhahaygu waxay qabanayeen maraan ku sugnaa goobta mudaharaadka dadka mudaharaadayay oo markaas ciidamada ku tuuraya dhagaxaan iyo markaas wixii ay heli kareen balse indhahaygu ma aysan qaban xabadaha nool amaba xabadaha ay sheegeen ciidamada boolisku inay rideen dadkii mudaharaadayay. mudaharaadkan ayaa markii hore waxa uu bilowday si nabada markii laga soo baxay salaadii jimcada waxayna mudaharaadayaashu wateen baabuur aanan soconayn oo taagneyd wadada Banda Street ee hormarta masaajidka Jamia Mosque iyagoo sidoo kale watay boorar iyo sawirro muujinaya cadaalad darrada lagu haysto Sheekh Abdullah Faisal oo Kenya lagu xiray dabayaaqadii bishii December ee sanadkii 2009 Sheekh Faisal ayaa dabayaaqadii bishii tagtay ee December lagu xiray magaalada xeebta ee Mombasa. sidoo kale dibadbaxayaashu waxay wateen boorar ay ku cambaareynayeen wasiirka socdaalka dalka Kenya Otieno Kajwanga iyo laanta cadaaladda Kenya oo ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen shirqoolka lagu xiray wadaadkani ka soo jeeda dalka Jamaica. dhinaca kale qaar fara badan oo ka mid ah dadka u dhashay dalka Kenya ayaa muslimiinta ku eedeeyay inay soo qaateen calankii madowga ee lagu yaqaanay kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta dalka Soomaaliya isla markaasina lagu eedeynay in xiriir dawlad leedahay kooxda Al-Qaacida halka dad fara badan oo ka mid ah dadkii mudaharaadayay ay ahaayeen dad asal ahaan ka soo jeeda dalka Soomaaliya ayna noqon karaan dad qaxooti ku ah dalka Kenya waxayna muwaadiniinta Kenya ku celcelinayeen erayada Kenya yeetu oo micnaheedu yahay annaga leh Kenya. sidoo kale waxay indhahaygu qabteen qaar ka mid ah shacbiga aan muslimiinta ahayn ee Kenya oo markaas hawlgalka dhinacooda kala qayb qaadanayay ciidamada ammaanka.